haddii qofkan uu kuu qabtay adeega uu yahay qof wanaagsan ama si fiican kuu soo dhaweeyey ama waddada uu wax kaaga iibinaya aad ka heshay, maxaad samaynaysaa? waxaad ku leedahay halkaa dollar iska hayso, keep the change, keep the change, baaqiga ama hadhaaga iska hayso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Khalid Yunus Osman and you are watching Khaludi English Updates. Today's lesson cashirkayga maanta is about wuxuu ku saabsan yahay these sentences weedhooyinka isticmaala. Yani there are many sentences weedhooyin badan ayaa jira, laakiin intan aan hadda inoo soo qaatay waa sample sentences oo ah kuwa isticmaalaya the articleka the articleka the. waxaa isla eegi doonaa insha Allah weedhooyinkan vocabularyada cusub ay inoogu jiraa, sida loo bedbedelayo iyo yani macnahooga guud iyo saad u isticmaali doonto insha Allah. The waa maxay? The is an article, waa article used aynu u isticmaalayno for things, waxyaabaha specific gaarka. Specific marka aan ku leenahay waa waxyaabaha labada qof ee wada hadlayay ay isla og yihiin. For example, haddaan ku idhaahdo a chair iyo the chair, labadan way kala duwan yihiin. waxay ku kala duwan yihiin a chair markaan ku leeyahay waa kursi, kursi markaan ku leeyahay kan waa kursi, kaasna waa kursi, u kalena waa kursi oo kalaas badan. haddiise aan ku idhaahdo the chair, kursigii, this means tan waxay ka dhigan tahay waa a chair, waa kursi aan labadeedu isla ognahay, ama mid aan hore usoo wada aragnay, mid aan hore ugu soo wada fadhiisanay, mid aan hore usoo wada isticmaalnay, ama mid fasal bannaan, mid iska dhex yaal, waa kursi aan isla ognahay. marka aad rabto inaad ka hadasho shay horey aad u soo sheegto qofka aad la hadlaysid kula ogyahay, ama shay gaar ah oo mid la mid ah una jirin, waxaad isticmaalaysaa the. waxaad ku daraysaa magaca ah keliyaata, magaca keliyaata ee jira ama gaarka ah. ereygan the ama articleka the wuxuu uu leeyahay at least ugu yaraan ilaa 10 usage, 10 waddo oo loo isticmaalo. maanta waxaynu eegi doonaa in ka mida 10kaa waddo insha Allah. dhammaantood ma wada eegi doono, xiisadaha kale kusii wada eegi doonaa, laakiin in ka mida ayaan isla eegi doonaa insha Allah. waxaan hadda ku bilaabaynaa weedhooyinka meesha inoogu qoran. The first sentence, wordda u horeysa is the room is hot. The room is hot. The room is hot. qolku wuu kulul yahay. Hot waa kulayl. Room qol. The room is hot. qolku wuu kulul yahay. What kind of room are we talking about here? qol caynkeeyanu ka wada hadlaynaa oo qol ay isla ognahay. laga yaabo inay 20 qol ay jiraan meesha aynu joogno, laakiin aynu ka hadlayno qol aanu garanayno ama aynu isla ognahay. The room is hot. The room is hot. qolku wuu kulul yahay. haddii aad rabto ka waran, qolku waa diirimaad. qolku waa diirimaad. waxaad bedelaysaa kan hot. hot waa kulayl. hot kulayl. diirimaad haddii aad rabto inaad tidhaa warm. The room is warm. The room is warm. warm oo diirimaad. qolku waa qabow haddii aad rabto inaad tidhaahna maxaad samayn? cold. Very good. cold. The room is cold. qolku waa qabow yahay. The room is hot. The room is warm. The room is cold. qolku waa qabow. haddii aad rabto waxaad bedeli kartaa room, yani subject haddaad rabto inaad wax kale ka dhigto waxaad dhigi kartaa roomta, bal aynu bedelno something else. Something like what? Okay, tea. Let's say
somebody gave you a tea. wuxuu ku siiyey qof baa ku siiyey tea, some tea. Let's say somebody gave you some tea. markaa waxaad rabtaa inaad tiraahdo waa kulayl shaahan aad siisay, maxaa leedahay? The tea is hot. The tea is warm. The tea is cold. The tea shaahu is hot, waa kulayl. The tea shaahu is warm, waa diirimaad. The tea shaahu is cold, waa qabow. haddii aanad shaaha jeclayn oo aad ka xiisayso coffee over the tea, waxaad leedahay the coffee is hot. coffee baad gashan kartaa, waxaad doontaad gashan kartaa. class baad ka dhigi kartaa meeshan haddii aad rabto. The class is hot. fasalku wuu kulul yahay. The weather is hot. The tea is hot. The room is hot. The room is warm. The room is cold. فهمتي? Okay, now let's move on to the next sentence. The light is on. Light waa lightka ama triga ama nalka. The light is on. Lightku waa daaran yahay. Lightku waa shidan yahay. The light is on. haddii aad rabto inaad tidhaa lightku wuu dansan yahay, instead of using on waxaad isticmaali off. The light is off. Lightku wuu dansan yahay. The light is off. The light is on. Lightku shidan yahay ama wuu daaran yahay. The light is off. Off iyo on way iska soo horjeedaan. Okay, let's move on to the third sentence. Keep the change. Change caadiyan haddii aan u macnayno according to the dictionary, haddii aan u macnayno change waa isbedel ama bedel, wax la bedelo. But according to this sentence, laakiin haddii aan u macnayno contextka sentencekan uu ku jiro, change bedelid kama dhigna. Keep the change macnaheedu waa, let's say for example, you went to a store to buy a shirt, si aad shirt usoo iibsatid. Let's say baan dhahno this shirt, garankan ama shirtkan costs $99. $99 weeye qiimihiisa. And you have adiguna waxaad haysataa $100, $100 in your pocket, jeebkaaga ayuu kugu jira. $100 haddii aad siiso meherada, maxaa kuu soo noqonaya? $1. halkaa dollar muxuu noqonayaa? The change waa hadhaagaagii ama baaqigii kaaga soo noqday wixii aad iibsatid. haddii qofkan uu kuu qabtay adeega uu yahay qof wanaagsan ama si fiican kuu soo dhaweeyey ama wadada uu wax kaaga iibinaya aad ka heshay, maxaad samaynaysaa? waxaad ku leedahay halkaa dollar iska hayso. Keep the change. Keep the change. baaqiga ama hadhaaga iska hayso. Turn off the TV. Turn off the TV. TV, television, waa TV-ga. Turn off waa demin, waxaad demisid ama aad baktiisid. Turn off, bakti ama demi, maxay? The TV, TV-ga. haddii aan rabno inaan nidhaa TV-ga daar ama shid, maxaan samaynaa? We change this off often into waxaan u bedeli doonaa on. Often maxaan u bedelaynaa? On. haddii aad tidhaa turn on the TV, macnaheedu waa maxay? TV-ga daar ama TV-ga shid. Turn off haddii aad tidhaahna waa demi, sida xaggan kusoo aragnay oo kale. The light is on. Lightku waa daaran yahay, waa shidan yahay. The light is off haddii aad tidhaahna lightku waa daman yahay, waa dansan yahay ama waa baktiisan yahay. Okay, let's move on to the 1, 2, 3, 4, 5, the fifth sentence. Get on the horse. The horse. Horse waa faraska. Get on the horse. Get on waa fuulid, wax la fuulayo. ama wuxuu noqon karaa a plane, diyaarad baad fuulaysaa. ama wuxuu noqon karaa a bus, bas baad fuulaysaa. ama wuxuu noqon karaa horse, waxaad fuulaysid,
maxaad leedahay get on. Get on the horse. Get on the plane. Get on the bus. haddii aad rabto inaad sheegto kasoo horjeedkiisana yani ka daadeg diyaaradda, ka daadeg gaariga, ka daadeg faraska. haddii aad rabto inaad tidhaa maxaad samayn ontan ayaad ku bedelaysaa off, sida aan labadan u kala bedelnay oo kale. Get off the horse. Get off the horse maxay dhigan tahay ka daadeg faraska. Get off the plane. diyaaradda ka daadeg. Get off the bus. baska ka daadeg. Get on waa fuulid. Get on the horse. Get off the horse. The book is easy. buugu wuu fudud yahay. The book is easy. buugu wuu fudud yahay. kasoo horjeedka easy waa maxay adayg. markaad rabto inaad tidhaa waxaa leedahay the book is difficult. buugu wuu adag yahay. The book is difficult. difficult ama hard. wax adag hard waad dhihi kartaa. difficult waad dhihi kartaa. kasoo horjeedkiisana muxuu noqonayaa easy. buugga hadduu yahay buug aad ku khalkhashayna the book is confusing. waxaan ka fahmi waaye waa buug aan ku khalkhalay dhan iyo dhanku ka jeedo ma aqaan. The book is confusing. The book is hard to understand. The book is easy. The book is difficult. The book is hard. The car is ready. gaarigu waa diyaar. The car is ready. gaarigu waa diyaar. haddaad rabto meesha gaariga wax kale inaad geyso wax kale oo diyaar ah wixii baad ku qoraysaa. For example, let's say cuntaad karinaysay maxaad leedahay the food is ready. cuntadu waa diyaar. The food is ready. cuntadu waa diyaar. The car is ready. gaarigu waa diyaar. The money lacagtu is ready. waa diyaar. anything shay kasta oo diyaar ah halkan ayaad gelinaysaa kadibna wuxuu noqonayaa wixii baa diyaar ah. We lost the game. We lost the game. waa lanaga bedshay cayaarta. The game waa ciyaar. ciyaartii aan isla ogeyn. Lost ku guuldareysasho ama marka lagaa bedsho. We anaga. We lost. inagu waan ku guuldareysanay ama waa lanaga bedshay the game cayaarta. haddii aad rabto ka waran waan ku guuleysanay inaad tidhaa lost maxaad u bedelaysaa won. We won the game. ciyaarta inagaa ku guuleysanay ama inagaa badinay. We won the game. inagaa ku guuleysanay. Clean up the room. qolka nadiifi. Clean up the room. qolka nadiifi. I won the lottery. waan ku guuleystay won. Lost ku guuldareysasho. Lose waxaad ku guuldareysatay. Lost waan ku guuldareystay. Win waa ku guuleysasho ama badin. Won waad badisay. I won waan ku guuleystay the lottery. The lottery waan ku guuleystay bakhtiyaa nasiibka. The lottery bakhtiyaa nasiib waa waraaqad ama maraaqad ahaan ama si kale ayaa loo sameeyaa bakhtiyaa nasiibkan. waa waraaqad nambaro ayaad ka xaquuqaysaa. haddii nambarooyin isku wad ay kugu soo baxaan intaasoo lacag ayaad helaysaa. The lottery. I won the lottery. waan ku guuleystay bakhtiyaa nasiibka. Beware of the dog. iska eeg iska ilaali. iska ilaali the dog ayga. Beware of ka warhay iska ilaali. Beware of waa digniin qofkaad u digaysaa waa iska ilaali. erey kale oo u dhigma waxaad isticmaali kartaa be careful. Be careful. Take care waa islaali waad odhan kartaa. Be careful waad odhan kartaa. haddii aad rabto inaad tidhaa qof tusaale ahaan uu soo socdaa shay baa ka dambeeya shaygaa ka dambeeya laga yaabo inay dhib gaarsiiso ama gaari baa soo socda oo jiiraya ama xayawaan baa kusoo ordaya ama waxbaa ka dambeeya kusoo dhacaya. qofkaad rabto inaad uga digtid ood u sheegtid maxaad leedahay watch out waad odhan kartaa. Watch out. Watch out. haddii aad exclamation mark gelisidna dareen baad meesha isu saaxa leedahay watch out. iska eeg qofka inuu sii jeesan wixii iska eegi markaa aad u sheegayso. Watch out waa iska eeg. Watch out the dog.
ayga iska ilaali. Beware of the dog. ayga iska ilaali. Put out the light. Put out the light. Light xageen kusoo aragnay? In the second sentence. Light maxay ahayd? Waa lightka. The light is on. Lightku waa daaran yahay. Wuu dansan yahay. The light is off. Put out the lightna. Put out off tiiba u dhigantaa oo waa demi. Adaa samaynaya ficilkii. Put out the light. Demi lightka. Put out the light. Demi lightka. Put out the light. Demi lightka. intaas ayay noogu egtahay cashirkayga maanta. insha allah la soco part 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.